asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaa idiin wada filim qiso dhab ah kaasoo lagu magacaabo My Sister Keeper. intaana filimkeena bilaabin waxaa kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto, fadlan hanaga hilmaamin mahadsanid. filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa anna oo tegaysa dukaan ayada oo rabta in ay soo gado silsilad dahab ah, taasoo dhahaysa walaasheedkeed in ay xanuunsan tahay. hooyada gurigu waxa ay iskaga soo tagtay shaqadeedii, halka habyartood oo gelin shaqaysa lacagta ay shaqayso ay ku nool yihiin, noloshooda dhanna ay ku kooban tahay siday Kate u xanaaneyn lahaayeen. waxay isugu imaanayaan miiska cashada ayaga oo qoslaya oo faraxsan. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Kate markay xanuunsan tahay ayada oo loo qabo in ay anemia qabto, waxayna aadayaan dhakhtarka kaasoo soo siinaya kaar ay ku sugaan dhakhtarka. kadib waxa ay la kulmayaan dhakhtarka ay rabeen oo lagu magacaabo Dr. Farquaad, kaasoo u sheegaya in ay qabto xanuunka kansarka. intaa kadib zaaid ayay u xanuunsanaysaa ayada oo matagaysa dhiig. kadib waxa ay la hadlayaan isbitaalka iyaga oo dhakhaatiirtu u sheegayaan in loo baahan yahay in laga bedelo dhuuxa, sidoo kale waalidkeed ama walaasheed ay tahay qofka siin kara. maalinta dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan qofka kaliya ee siin kara in ay tahay walaasheed. maalinta xigta Kate aad ayay u xanuunsanaysaa. subaxii xigta Anna waxay soo gashay ayada oo dhiig sanka ka socdo. Anna waxa ay u tagta abukaata ayada oo rabta inay waalidkeed dacweyso sababtoo ah ayada oo sheegaysa in ay xadgudub muuqdo ku sameynayaan jirkeeda. waxa ayna u sheegaysaa in ay walaasheed qabto kansar, waalidkeedna ay ku khasbayaan in ay jirkeeda qayb ka mida siiso. sidoo kale waxa ay sheegayaan keliyaheeda mid ka mida in laga bixin doono oo loo gelin doono walaasheed. haddii hal keli laga saarana in ay u keeni karto nolosheeda waxyaabo badan in ay qabsan weydo, kuma ay noolaan karto nolol caadiya. waxa ayna u baahan tahay in ay taxadarto caafimaadkeeda si ay isku ilaaliso. abukaatuhu waxa uu fiirinayaa warqadaha, waxa uuna ogaanayaa wax walba ay sheegaysa inay sax yihiin. waxa ay siinaysaa $700 si uu u caawiyo iyada, waana uu aqbalay. waqti kadib dadka oo dhan oo isbitaalka jooga, abukaataha ayaa u yimid asagoo u sheegaya inuu qareen u yahay Anna. Saara aad ayay u wareertay, laakiin Anna waxa ay u sheegtay in ay qabsatay qareen dacweysayna. waxa ay u sheegtay inaan lagu khasbi karin wax aysan doonayn. hooyadeed dharbaaxo ayay ku dhufatay. Anna qolka ayay ka baxday. Anna aabaheed waxa uu soo wacay Saara asagoo ku dhex jira shaqadiisa dabdamiska. habeenkii xilli dambe dadka oo dhan oo wada fadhiya, markaas oo ay sheegtay in aysan rabin in ay wax siiso walaasheed. waxa ay sheegtay in ay rabto nolol dheer oo farxad ah, taasoo aan lahayn murugo. dhakhtarku marka hore waxa uu u sheegay in uu taxadari doono inta nolosheeda ka dhiman haddii ay bixiso jirkeeda qaybo ka mid ah, sida cabitaanada, ciyaaraha fudfudud, xataa in ay ilmo dhasho ay dhibaato ku keeni karto. hooyadeed ayaa ku xanaaqday Anna waa ay ka kacday. Anna aabaheed ayaa u kaxeeyay goobta shaqada, taasoo waqti dambe ka yimaado. habeenka Anna waxa ay arkaysaa hooyadeed iyo aabaheed oo doodaya, halka aabaheed uu leeyahay go-aankeeda iyada iskale ha loo daayo. maalintii xigtay Saara waxa ay xafiiska ugu timid qareenka ayada oo u sheegaysa in uu kiiskani yahay macno daro, halka ay Anna tahay ilmo yar. isla markiiba qareenku waa uu kasoo horjeestay arrinteeda, kadib waa ay ka soo baxday. maalintii xigtay Kate aabaheed iyo hooyadeed waxa ay isku dayeen in ay soo kiciyaan halkaas maalmo badan jiiftay, halka Kate ay dareemaysa xanuun, muuqaalkeeduna uu isbedelay. markaas hooyadeed tinta ayay iska xirtay si ay ugu muujiso taageero weyn. xoogaa ka bacdi faamilkeeda waxa ay aadeen banaanka ayaga oo halkaas sawiro kusoo galay, waqtina kusoo qaatay. muuqaalka xiga Kate waxa ay joogtaa isbitaalka iyada oo daawanaysa sawirada faamilkeeda, waxa ayna ka fakaraysaa qof kasta in uu ayada ka walwalaya. Saara iyo Brian waxa ay rabaan ilmaha yararka inay u diraan iskuulka si uu u sameeyaan horumar. isla markaa ilmaha yararka way oynayaan asaga oo raacay waalidkiis go-aankooda. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa maxkamadda, halkaas oo qareenka Solf uu hayo kiiska Anna. kadib markii ay wareysatay Saara abukaataha Anna, qareenka Solf waxa ay u yeertay Anna iyada oo su'aalo weydiisay. kadib maxkamaddu garsoore Solf waxa ay xukuntay in kulamadii socday sii socon doonaan. galbaaritaankii dhakhtarku waxa uu Saara u sheegayaa difaaca jirka Kate in uu eber yahay. Kate waa ay la socotaa xaalkeeda
isbitaalkeeda iyada oo og in ay dhawaan dhiman doonto, laakiin midaas hooyadeed ogolaan mayso, waana ay jeceshahay gabadheeda, waxa ayna diideysaa in ay aqbasho in ay dhimato. dhakhtarku waxa uu sheegayaa in ay waqti la qaadato faamilkeeda sababtoo ah waqtigii ugu dambeeyay ayay ku jirtaa, laakiin Sarah ayaa weydiisay waxa ay rabto in ay qaliinka lagu sameeyo. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Taylor kaasoo ah bukaan kansar qaba, kaasoo xiriir dhex maraya Kate oo aad isugu soo dhawaanaya, iyaga oo banaanka aadaya isna shukaansanaya. waxa ay aadeen xaflad habeenkaas, dhanka kale waxa ay qaateen waqti. maalintii xigtay Kate aad ayay uga xanaaqday sababtoo ah Taylor ma soo booqan mana uusan u soo jawaabin fariinteeda. hooyadeed waxa ay raadisay Taylor, waxa ayna ogaatay in uu dhintay. Kate waxaa loo kaxaynayaa xeebta halka ay hooyadeed diideyso in uu aabaheed kaxeeyo, waxa ayna rabtaa Kate in ay isbitaalka joogto si xaaladeeda ula socdaan si dhow dhakhaatiirta, laakiin Kate aabaheed wuu kaxaynayaa marka uu ka dhaga adeygo. Kate waxa ay waqti wacan la qaadanaysaa xeebta aabaheed, halkaas xoogaa ka bacdi waxa ugu imaanaysa hooyadeed, isla markiina isbitaalka dib ayaa loogu celinayaa. isla maalinta kelinkeedii dambe maxkamadda ayaa horay u sii socotay. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa in ay Anna ka celinayso Kate in ay isdisho. Kate way ogaanaysaa dhimashada Taylor, sidoo kale waxa ay rabtaa in ay dhimato si ay uga daba tagto Taylor. dib waxaan ugu soo noqonaynaa maxkamadda, halkaas oo aysan rabin Anna in ay bixiso jirkeeda qaybo ka mid ah. hooyadeed waxa ay ka shakinaysaa in ay ka dambeyso qof arrinkan. intaa kadib waxaa imaanaya Jesse kaasoo sheegaya sababta ay Anna sidaa u sameynayso in ay tahay Kate in ay rabto in ay dhimato, sidoo kalena aysan qaliinka la hubin in lagu guuleysan doono iyo in kale, laakiin hooyadeed uma aysan diyaarsanayn in ay aqbasho go-aankaas. waxa ayna dhahaysaa Kate way u sheegi lahayd waxyaabahaas wax la mid ah haddii ay jiraan. ninkeedu waxa uu dhahayaa Kate waxa ay u sheegtay marar kala duwan, laakiin ma aysan dhegeysan sababtoo ah aad ayay u jeceshahay. daqiiqadii xigtay qareenka ayaa ka baxaya qolka maxkamadda asaga oo cidna u sheegin, isla markii albaabka uu saa uga baxo waxa uu ku dhacayaa maxkamadda dhexdeeda. markii uu soo kacay maxkamaddu waxa ay sii socotay, isla markii qareenka Anna uu fiicnaaday, laakiin garsooraha go-aankeeda waa ay gaartay, laakiin inta aysan caddeyn go-aankeeda ugu dambeeya waxay go-aansatay in ay la kulanto Kate qaas ahaan. markay la hadashay Kate waxa ay ka baxday qolkeeda, waxa ayna u soo gashay qolkeeda. intaa kadib aabaheed waxa uu dalbaday pizza si jawi wacan uu ugu bedelo faamilkeeda. intaa kadib waxa ay cunayeen pizzaha. Kate intaa kadib hooyadeed waxa ay u samaysay buug kaasoo ay ku soo xasuusan doonto xasuusaheeda oo dhan. hooyadeed waa ay oyday, intaa kadib hal sariir ayayna ku jiifsadeen. filimkeenu waxa uu isku rogayaa qabriga Kate oo qof walba aan arkayno inuu murugaysan yahay. maalmo ka bacdi Anna waxa ay gashay booqasho lama filaan ah, waxaana u yimid abukaataha, waxa uuna u sheegay in ay ku guuleysteen kiiska. markii ay Kate dhimatay wax badan ayaana isbedelay. Sarah waxa ay bilowday shaqadeedii halka aabaheed uu tababarayay dhalinyaro kuna caawinayo boxingka, halka Jesse uu ku laabtay iskuulka uuna helay scholarship akaademiyeed ku taala New York. filimkeeni intaas ayuu noogu egyahay. fadlan ha naga hilmaamin subscribe-ta. mahadsanid.